Kashmir waa mid ka mid ah meelaha ugu xasiloonida daran caalamka. Dhawaad 75 sano waxay goobjoog u ahayd dagaalo dhex maray Hindiya iyo Pakistan. Pakistan waxay taageertaa kooxaha maleeshiyada ah si ay u weeraraan gudaha qaybta ay maamusho Hindiya, halka Hindiya ay geysay gobolkan 500,000 oo askari, kuwaas oo aysan u xisaabsanayn waxa ay geysanayaan. haddaba goorma ayay bilaabatay colaadan Kashmir? Maxayse tahay sababta ay ugu hardamayaan Hindiya iyo Pakistan? Muuqaalkan ayaynu uga jawaabaynaa su'aalahan iyo kuwo kaleba. Intayna muuqaalka u gelin, fadlan like saar muuqaalka kuna soo bir madashan. Kashmir waa mid ka mid ah meelaha ugu istiraatiijisan caalamka, waxayna xudun u tahay 3 quwadood oo ku hubeysan hubka sida ba'an wax u gumaadeen nukliyeerka. Hindiya, Pakistan iyo China waa 3 quwadood ee ku hardamaya gobolkan qaniga ee Kashmir. Shiinuhu wuxuu la wareegay mar horeba qaybtan leh midabka jaalaha ee khafiifka ah, sidoo kale qaybtan waa isla midabkana waxaa siiyey Pakistan, halka Hindiya iyo Pakistan ay maamulaan labadan qayb ee kale, laakiin labaduba waxay sheeganayaan qaybo dheeraad ah, waana meesha ay salka ku hayso colaadan ka alowsan gobolka ay labaduba maamulaan ee Jammu and Kashmir. aynu dib ugu noqono waayihii guunka ahaa ee qaaradweekaha Hindiya si aynu u fahanno meesha uu ka imaaday loolankan. bartamihii 1800 Ingiriisku wuxuu qabsaday qaaradweekaha Hindiya, wuxuuna ku fuliyey siyaasaddiisa caanka ahayd ee qaybi oo xukun. wuxuu u qaybiyey Hindiya dhowr boqol oo gobol iyo boqolaal kale oo dowlad goboleedya oo dhammaantood hoostaga boqortooyada aysan qoraxdu ka dhicin ee Britain. qarni kadib 1947 wuxuu Ingiriisku dhawaaqay madax-bannaanida qaaradweekaha Hindiya, laakiin wuxuu go'aansaday inuusan sidan kaga tegin. wuxuu Ingiriisku u qaybiyey 2 qaybood, dalka ay muslimiintu u badan yihiin oo la yiraahdo Pakistan iyo dalka Hinduusku u badan yihiin oo la yiraahdo Hindiya, laakiin kala qaybintu waa mid dhiig badan uu ku daatay. 1 million people become refugees overnight. They flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. qaybo ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyada waxaa doorasho loo siiyey inay ku biiraan dalka ay rabaan. haddii uu madax goboleedku u yahay Muslim, wuxuu ku biiriyey Pakistan, hadduu Hinduus yahayna wuxuu ku biiriyey Hindiya, iyadoon loo eegayn dadka meesha degan waxay yihiin. waana khiyaano uu Ingiriisku ka baaran degay waqtiguu imaaday Hindiya. laakiin gobolkan Jammu and Kashmir waa mid ka duwan goboladii kale. dadka degan Jammu and Kashmir badi waa muslimiin, laakiin madaxa dowlad goboleedku waa Hindu. markii laga dalbaday inuu ku biiro dhinac, wuxuu go'aansaday inuusan midna ku biirin oo uu dhexdhexaad noqdo, laakiin muslimiintii Jammu and Kashmir ayaa ka baqay inuu isbedelo ninkan Hinduuga oo uu ku biiray Hindiya. waxay reer Jammu and Kashmir ay mudaharaadyo gadood wata ay ka dhigeen halkan, kadibna kooxo hubeysan oo Pakistan ka soo jeeda ayaa markiiba ku biiray dagaalka. madaxii gobolka Jammu and Kashmir ee Hinduuga ahaa ayaa caawimo military ka dalbaday Hindiya, taa beddelkeedana wuxuu ogolaaday inuu ku biiro Hindiya. halkaasna waxaa ka dhashay dagaalkii ugu horreeyay Hindiya iyo Pakistan. Continuing was increased the threat to world peace and brought the dispute to the attention of the United Nations. golaha ammaanka ee qaramada midowday wuxuu dhexdhexaadiyey xabad joojin 1947 taas oo lagu aasaasay khadkan oo dhigaya in gobolka Jammu and Kashmir 2 qaybood loo qaybiyo, qaybtan ay maamusho Pakistan iyo qaybtan ay maamusho Hindiya. dagaalka intuu socday, kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka dhex maray ciidamada aadka u badan ee labada dhinac. 10 sano oo nabad ah kadib 1965 waxaa dhacay dagaalkii labaad ee Hindiya iyo Pakistan. mar labaad ayay qaramada midowday soo dhex gashay, laakiin laynkan kala bariya gobolka Jammu and Kashmir lama bedelin. 6 sano kadib waaba dagaalkii saddexaad ee Hindiya iyo Pakistan, laakiin markan diiraddu ma ahayn Kashmir, waxay ahayd bariga Pakistan. Hindiya waxay taageeray kacdoommadayaashii bariga Pakistan ee doonayay inay ka go'aan Pakistan, laakiin bariga Pakistan waxay noqotay dal ka madax bannaan Pakistan oo la yiraahdo Bangladesh. Pakistan sidan waxay ku lumisay qaybteeda Pakistanta bari, ilaa waxbadso wax beel bay leedahay. Pakistan waxay awoodoodii isugu geysay Maraykan qaabkay u ilaashan lahayd Jammu and Kashmir, waxayna Jammu and Kashmir noqotay
stage ay ku hardamaan Hindiya iyo Bakistan. maleeshiyaadka Kashmir sida Jammu and Kashmir Liberation Front ayaa bilaabay qorista dhalinyarada muslimiinta ah si ay ugu dagaalamaan madaxbannaanida Jammu and Kashmir, waxayna si isa soo taraysa u weerareen goobaha militariga Hindiya ee Jammu and Kashmir. laakiin Bakistan waxay halkaas ka aragtay fursad aad u weyn, waxayna taageero hiil iyo hooba ah la garab istaagtay ururkii dhalinyarada xoreynta Jammu and Kashmir, maadaama ay ka yaraanayaan dagaaladii joogtada ahaa ee Hindiya. laakiin Hinduusku waxay Jammu and Kashmir u diraan 500 oo kun oo askari, kuwaas oo aan u kala eegayn shacab iyo maleeshiyaad. waxay dileen boqolaal reer Kashmir ah halka kumanaan kale ay ka barakiciyeen guryahoodii. Kashmir is completely destroyed by India as well as by Pakistan. This is a territorial dispute, they call it. They don't need people. waxaan dib ugu laabanay casrigii dhagaxa. ma ogi waxa adduunka ka socda, lama socono waxa ka socda dariskeenna. tani cawaaqib xun bay leedahay, waxay la mid tahay sida Israa'iil ay ku degtay Falastiin. siyaasad taa la mid ah ayaa halkan loo adeegsanaya. Kashmir waxay noqotay goob dagaal oo u dhaxaysa laba wadan oo hubka nukliyeerka ah haysta. dagaal kale ayaa qarxay 1999kii, wuxuu caalamku indhaha ku hayay labadan dal ee ku hubeysan hubka nukliyeerka. xabad joojin kale ayaa la sameeyay, laakiin Kashmir sidii 1947dii ayay u kala qaybsanayd. aynu dib ugu noqono xiisadii ugu dambeysay ee gobolkan 2019kii. 19 jirkan lagu magacaabo Caadil Axmed Daar kana soo jeeda magaalada Balwama ee gobolka Kashmir wuxuu isku qarxiyay kolonyo ciidamo ah oo Kashmirta Hindiya ah, wuxuuna dilay 40 ka mid ah ciidamada Hindiya ee Kashmir. 12 maalmood kadib Hindiya waxay duqeymo cirka ah ka fulisay waqooyi galbeed Bakistan, kadibna Bakistan waxay soo riday ugu yaraan 1 diyaarad oo laga leeyahay Hindiya. xiisad kale ayaa ka dhex aloosantay labada dal ee iska soo horjeeda.